guudahaan xaaladda gobolka aad bay ku wanaagsan tahay abaarta Ilaahay waa naga jibiyay oo badan baa ka tahay gobolka khasaaradu iska yaraa dhimasho 2 qof iyo 1 qof oo dhaawac bay geysteen xoolo badan oo idoo badan aad bay ugu dhinteen sida kale waa la nimcaysan yahay kulli isgaarsiintii tuulooyinka xagga wadada khasaaro badan buu geystay roobkaasu oo ilaa baabuur imika 9 habeen ku jirtay baa la soo sheegayay xaaladda guud ee nabadgelyadu aad bay u fiican tahay waa ogtihiin dhibaatada ugu weyn waxa ay fiicilka weyn sifooyinkii waanu kala qaadnay qolo walba waxa laga soo xareeyay 594 xalaad mag ah waliidamkiina waanu gaarsiinay inkastoo wali qaarkood kaash ahaan ay ugu dhiman yihiin haddana adduunyada dhibaato kama dhamaato Ilaahay xumaha iyo sahamar buu wada abuuray maalin baanay wada dhamaanayaan marka 100% complete noqonaya ma jiro waligeed qabiiladaas ma ku jiraysaa dilay yaro dambaan dhacay iyagana ciidanka booliisku ay ku maqan yihiin shaqana kuma leh hawlihii hore waa individuals waa ashqaasana waanka laga gaaray wuxuu ahaa dad gacan ku dhigle in isaguna ku ekaato halkii awal laga balaarin jiray reer ka noqon jirtay in qofka noqoto go'aankaasuna uu hirgalay wax sabab dhibaato dhaqdhaqaaqa dadku si wanaagsan buu imika soo dhaxkalay safkada isku soo wanaagsan yahay calooshooda wanaagsan tahay laakiin deynta yar sheedaan ku shaqaysanayna insha Allah waxba laga qabanayaa anigu waan ka soo maqnaay imika ilaa idii gobolka wax dhibaato cusub oo ka dhacay lima soo sheegin waanu isku wanaagsanahay khayr badan iyo horumarna waan rajaynaynaa insha Allah sanadkan mashaariic badan baan filaynaa in gobolka ay nooga hirgasho haddii intaas noo dhaqaaqdana gobolka wuxuu noqonayaa gobolada Soomaaliland sidiisa waa gobol ballaaran waana gobolka ugu qanisan oo nooc wal oo nolol leedahay waa laga helaa xoolo leeyay bad buu leeyay macdan buu leeyay oo waliba inta baa wada intifaacsado imka macdan dhulkiisa ka jirto macdan baan leenahay ma haatiis waa mid imka practical loo intifaacsado oo waqtiino dahab badan oo inkastoo inta loo qodin hadana dusha laga urursado ayaa iska jira horta sidaba dhulku waan roob waana beeraley waana buuraley dambiilihii buur buu gelayaa wali tiknikada ciidankuna ma geli karto laakiin eerida ay ku jireen intaba ciidankii birmadka booliiska militariga waa laga howlgalay dad badan oo dadkii u shaqeynayay waa la soo qabtay laakiin exactly wali gacan ku dhigay qaacad lagu ma dhigin waa si lagu dhawiyay waana la helayaa muddo dhow weyga soo socda hadaa la ilaa horta xaaladda degdeganaga ma khusaysay ma jirin waxa looga jeeday wuxuuna yahay in horta gacan ku dhigaashid saraakiisha dilay la soo qabto hawshaas ciidan mooyaane wax bandooyo maamul ahaan aan maaragno aan naga hergalay aan baan nagu socday ma jirin laakiin ciidanku hawlgalka sidii hore ka duwan oo biliiskeeru ban nabadgelyo lagu hayn jiray macaamilatiga la hawlgalo nabadgelyada qaanta wax laga qabto bay ahayd ciidankuna way socotaa laakiin wax dolay soo kalo ay nagu hayso dhibaato kama naga noqon kale ciidankiisa baan uga soo celinay isaguna shakhsi buu noqonayaa marka tiknikadina meel buu ku xareystay isagana waxa laga yaabaa inuu dhawaan naga dhoofaba